السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معامل شرفت له كسول هذا شركة داسكوليكم. فيديو محاربة إن الأوجا جوابه أرضيدا سيدة أي إقامة دا أرضينا ماذا كوي كران أما سيدة اللوجو دي ذكرى أو أي رجعته قاعدة كران قضبة يكون قاعدة كران يحدى قاتان محيط هاي إني سميان أو حالكم محوي هاي أي عربة فيديو كان إن نقصه كوبه أرضنا وحا إقامة اللوجو دي دا شن قضب أو مهمة طبعا وجران قضبة كلا أوصل بحكرة لكن شنتان قضب أي أجوين هو أرضنا إقامة اللوجو دي دا هذا بقى أن أجدبنه شرحت أي حدي أذكر أصبت هاي يوتيوب channel كأنه هذا نقدر داونه سو وحن كعوتن لها إن سبسكرايب إنه هذا صدق كله في فيديو كنا تفرج بدل أجارنا اللايك تانو صارته وهي فكر كأجا أنا قيبت كومنتيجا هذه نقصه بس قلب ككوبات وإن أرضه وإقامة كحريسته فيزو خلدا maxaan ka wadaa tusaale ahaan waxaad haysataa fiisa luuqadeed oo luuqad ayaad fiisa ku soo qaadatay kadibna haddii aad isku daydo inaad ardaynimo xareysato in lagu diido ayaa laga yaabaa sababtoo ah amniyaadku waxay leeyihiin ardayga luuqad ku yimid waa inuu marka hore luuqadda iska diiwaan geliyo sidaas awood waxaan kula talin lahayn ardada fiisaha luuqadda haysto inay marka hore iska soo diiwaan geliyaan jaamacadihii ay luuqadda ugu yimaadeen kadibna ayagoo iqaamadda haysto ay jaamacad kale u bedeshaan si aan wax dhibaato ah ugu dhicin mid kale oo aan dhihi karno فيزا خلدان وحاواي فيزا وحا كتمد عافمات اما نقو قفك جيران اما نقو قفك جيران قفك لا سocday inaad jaamacad iska diiwaan geliso adoon iqaamo caafimaad qaadan ihtimaalkeedu waa yar yahay yani hadii fiisaha caafimaadka aad ku xareysatay jaamacad dokumentigaagana aad immigration u geyso 90% waxay ku soo sii doonaan rejection sababtuna waxa waaye fiisaha aad ku timid iyo iqaamada aad xareysatay way kala duwan yihiin marka hore waa inaad caafimaadkeeda iqaamo ku soo qaadato adoo iqaamada caafimaadka haystana hadii fikirkaaga uu noqdo inaad meeshan jaamacad ku sii dhigato inaad jaamacadaada aado saasna aad iqaamo ardaynimo ugu bedelato iqaamadii caafimaadka sidoo kale waxa dhici karto fiisiyaal waxa jiro 14 bari ah ay ku qoran tahay iqaamo lagu ma qaadan karo ama 15 bari ah iqaamo lagu ma qaadan karo oo inta badan dadka bandhiga ka qayb galayo dadka shirar iyo wax kamid ah ka qayb galayo inta badan la soo siiyo taasna waa inaad iska fiiriso inta aadan jaamacad iska diiwaan gelin in hadii fiisaha aad haysato uu yahay fiiso muddadeedu ay yar tahay in immigrationka ama xafiiskeena la soo xiriirto si aan kuugu fiirino inaad iqaamo ku qaadan karto iyo in kale qodobka labaad hadii aan ugu dubno qodobka labaad waa in jaamacadii aad ku timid aadan iska diiwaan gelin tusaale ahaan maxaan ka wadaa jaamacad dawladda ayaa ku timid kadibna waa iska dhaaftay jaamacad bareefada ayaa gashay ihtimaalka in iqaamada lagu siiyo dabcan waa uu yaryahay dabcan gobolka ka xariistana way ku xirnaa kartaa laakiin gobolada waaweyn sida Istanbul iyo Ankara dadka waxa aad loo siinayaa rejection hadii jaamacadda ku yimaadeen iyo jaamacadda iska diiwaan geliyeen aysan isku mid ahayn marka waa laga yaabaa in aad aragto dadku dhahayo anaa hore ugu qaadan jiray waxaas wixii waagi hore waa waagi hore waxa aniga hadda aan ka hadlaayo waa 2023 jaamacadda fiisa ku soo qaadatay in ayada iska diiwaan geliso ayaan ku gala tan lahayn si aad rajada u qaadan qodobka saddexaad waxa waaye jaamacadda ay xiratay ardayga tahay jaamacadda ay dhigataa kadibna arin ayaa kula soo daristay kadibna waxaad ku qasbanaatay jaamacadda inay xirato jaamacadda waa xiratay warqadii xirashada waa haysataa ama jaamacaddii waa iska kansashay yaa waa tagtay waxaan aad ma wadi karo waa laga kansal ama jaamacadda ay waa ka kansasho ama adiga iska kansal laakiin jaamacadda waa kansashay ama jaamacaddii ayaad iska bedeshay oo jaamacad kale ayaa u bedelatay ama waa qalin jabis afarta sababood midkood hadduu kugu dhaco waa in aad immigrationka 10 maalin gudahooda ugu sheegto si ay ama iqaamo kala kuu siiyaan ama haddii jaamacadda ka bedelatay ay jaamacadda kale oo aad u bedelatay iqaamadda kugu update gareeyaan oo san hadhow dhibaato kula kulmay waayo waxa jiro arday jaamacad ka bedeshay kadibna 6 bilood kadib immigrationka tagay immigrationkina ay dhaheen adiga jaamacadda xilliga aad iska kansashay waa 6 bilood ka hor noomana aad soo sheegin saas awood wadanka ka bax soo gal laakiin waxa laga yaabaa ardayga la dhahayo wadanka ka bax soo gal inuu wali haysto iqaamo aan dhicin waxa lagu haystaa kaliya waxa waaye maxaad u soo sheegi weysay xilli hore in aad jaamacadda iska bedeshay ama maxaad u soo sheegi weysay xilli hore inaad jaamacadda xiratay si aan macnaha muxuu ahaa systemka kaaga update gareyn marka aan ku celiyo way aad inoogu barin waxa aad ka noogu badan waa ardayda dhahayso wali iqaamadeeda 4 sano ka harsan wali iqaamadeeda 3 sano ka harsan laakiin jaamacadda u xiran tahay ama ku dhahay ani iqaamadeeda waxa waaye wali 7 bilood ka harsan laakiin jaamacadda soo kansalay kuwaas aad u badan yihiin kaarka waxa ku qoran muhiim ma ahan waxa muhiima systemka immigrationka waxa ka muuqdo jaamacadda marka xirato ama jaamacadda marka joojiso immigrationka listiga loo diraa magacaaga listigaas uu ku jiraa immigration marka way la socdaan inaad jaamacadda dhigan berri marka iqaamada cusboonaysiinayso markaas ay
ay ku qabsan doonaan oo ay ku dhihi doonaan maxaad noogu soo sheegi weyse marka qodobka saddexaadna sidaas ayaan rabaa inaan uga gudbo qodobka afraad waxaa waaye marka in jaamacaddu aysan active ku ahayn maxaan ka wadaa inaysan active ku ahayn dabcan waxaa laga yaabaa jaamacadda inay lacag kugu leedahay waxaa laga yaabaa inaad diiwaangelinta aadan cusboonaysiinin ama waxyaabo kale ayaa dhici karo saas aawadeed systemka jaamacadda waxaa laga yaabaa markii la galo inuu passive ku yahay haddii marka systemkaaga uusan active ahayn immigrationka markaa iqaamo ka xaraysato waxay ku dhihi doonaan fadlan noo keen warqad active ah qaarkoodna ayagoon ku dhihin ayayba ku kansali karaan marka mar walba ardayga waa inuu systemkiisa la socdo inta uusan ciqaamadda xaraysan ka hor weliba waxaan ardada kula talin lahaa ardada ciqaamadda cusboonaysiinayso inay jaamacadda ka qaataan warqad caddaynayso inay active yihiin intaysan immigrationka u geynin dokumentigooda qodobka shanaad ugu dambeeyo waa in ciqaamadda si khaldan loo xareeyo iska jir ciqaamadda lagu xareynayo qaabka lagu xareeyay waa muhiim waa bari waa lagu diidi karaa wax yariis laga yaabaa in laga khalday yani wax yariis dadkuna way yareysanayaan markii ciqaamadda la xareynayo ciqaamadda markii la xareynayo waa muhiim xogta la gelinayo in 2 jeer ama 3 jeer double check lagu sameeyo sababtoo ah waa wax bari ciqaamadda lagu siinayo waa wax maanta meeshaas la geliyo marka tusaale ahaan ardayga waxa loo geliyay aniga wax lacag ima soo gala yani meesha ah maxaa ku soo gala lacag wuxuu ku qoray 0 yani wax lacag ima soo gala ardayga registerless yani laga yaabo inaysan wax weyn dadka u arkin oo iskaga qoraan 2 kun 3 kun 4 kun xule iskaga qoraan laakiin waa muhiim marka loo fiirsho immigrationka marka iska fiiri ciqaamadda nooca lagu xareynayo qofka ku xareynayo iyo xogta ku xareeyay iska jeegaray inta aadan immigrationka u tagin ama inta aan fiisaha ama ciqaamadda hore uusan ka dhicin haddaba aan u imaano marka xalka ardada rajada qaatay yani ama ardada ciqaamadda loo diiday sidee ay ciqaamo kale ku heli karaan xalku anigu waxaan u aragnaa oo kaliya dabcan immigrationku inta badan ardada u soo sheegaan inay wadanka ka baxaan ay soo galaan arday waxaa jirta lacag badan looga cunay waxaan ku soo saaraynaa ciqaamadda humanitarianka ama waxaan ku soo saaraynaa ciqaamo muxuu ahaa dadkan qaxootiga ah iyo wax noocaas marka taas fadlan ha isku dayin xalka kaliya wuxuu noqon karaa inaad wadanka ka baxdo fiisa cusub soo qaadato ee aad soo laabato su-aasha marka waxaa waaye goorma ayay tahay inaan baxo xilliga inaad baxdo ay tahay dabcan waxay ku xiran tahay xilliga jaamacaddu ay kaa xirmayso haddii ciqaamadda lagu diido semesterka koowaad waxaan kugula tali lahayn inaad baxdo dhexbartanka ama dhammaadka bisha January si aad uga soo gaarto bilowga semesterka labaad oo 1 bil ilaa 1 bil iyo bar fiisahada waa ku soo heli doontaa haddii lagu diido semesterka labaadna dabcan waxay noqonaysaa inaad iska sugto inta bisha June laga gaarayo oo 10 iyo wax dhan ay ka dhamaanayaan kadibna bisha June waxa ka dambeeyo intaad wadankii ku laabato aad fiisa kala soo qaadato haddii baasaboorka aad haysato uu yahay baasaboor European ama haddii baasaboorka aad haysato uu yahay baasaboor Soomaali ah ama baasaboor Afrikaan ah labadaba inaad baxdo aad soo gasho waad ku khasbantaa laakiin baasaboorka Europeanka wuxuu uga duwan yahay baasaboorka Soomaaliya ayagoo fiiso looma baahna ama baasaboor Canada ka wado ama Mareykan ka wado baasabooradaas dadka haysto inta badan fiiso uma baahna laakiin ayagana shardi ayaa meesha yaallo oo ay tahay inay ka soo baxaan shuruudaas waxaa waaye in aysan ganax qaadan fadlan waalidka idhageysanayo arrintaas si fiican ha uga taxadiraan waayo waxaan arkay arday 6 bood la ganaxo ku dhahayo waxaan airportka malabaad leega celiyay ardayga baasaboorka oo wato hadduu yahay baasaboor aan Turkiga inuu fiisa loo qaato loo baahnayn halka shardi oo immigrationka airportka ay fiirinayaan waxaa waaye ardaygan wax ganaxa hore muuqaat ganaxa waxaan ka wadaa airportka marka ka baxdo haddii lagu dhufto 2 bil ma imaan kartid ama 3 bilood ma imaan kartid ama 4 bilood ma imaan kartid laakiin aad rabto inaad degdeg ku soo laabato halka kaliya wuxuu noqonaa inaad fiiso ardaynimo soo qaadato laakiin haddaan lagu ganaaxin ee lagu dhahay xilliga rabto soo laaban kartaa inta hadda baxdid hore waa ka soo kala jiiray kartaa Turkiga ku soo laaban kartaa laakiin shardigu waa maxay inaan lagu ganaaxin haddii lagu ganaaxay ee aad ganaaxada soo dhameysatay dabcan waa soo laaban kartaa adoon fiisiban u baahan laakiin haddaad leedahay ganaaxiga ka horan rabaa inaan soo laabto waa in aad fiiso ardaynimo wadanka aad markaas joogto ka soo qaadato ama Ingiriis ahaaw ama Mareykan ahaaw arrintaas waa inaad maskaxda ku hayso waayo shayga shardiga kaliya la fiirina waa kaas dadka aan marka fiisaha u baahan oo ayagu baasaboorkooda aan fiisa la'aan soo gali karin dabcan ayagu mar walba fiisa ay dalbanayaan waxaa jirto su'aal arday is weydiinayaan oo ah ardada u baahan inay fiisa soo qaataan haddii la ganaaxo 6 bilood 1 sano 2 sano 3 sano 4 sano ma inay sugaan inta ganaaxu ka dhamaanaya mase ka hor way soo laaban karaan dabcan ka hor way soo laaban karaan laakiin waxa la isku xiraaya kaliya waxa waaye inay fiisa soo helaan taas anigu ma sheegay weydii immigrationka markaad baxayso
ayaga ayaa kuu sheegaya haddii aad degdeg kusoo laaban rabto waxay ku leeyihiin soo qaado fiiso ardaynimo soo qaado. marka fiisaha ardaynimada marka intaada wadanka ka bixin maxay tahay dokumentiga laga rabo inaad hore u qaadato ama marka aad safaaradda fiisaha ka xareysanayso maxay tahay dokumentiga ay tahay inaad safaaradda siiso ayaan rabaa inaan kuu qoro. fadlan inaad qorato oo aad dokumentigaas diyaarsato ka shaqeey si aad degdeg fiisahaaga ugu soo hesho. dokumentiga koowaad inaad diyaarsato ay tahay waxaa waaye iqaamadii wadankan aad hore uga heshay ama fiisihii wadankan aad kusoo gashay haddaadan iqaamo haysan fiisihii aad kusoo gashay inaad koobi garaysato. warqadda jaamacadda markii aad baxayso inaad ka qaadato aqbalaad ama warqadda ardaynimada oo active ah oo cusub micnaha oo taariikhdeedu cusub tahay. turkiga haddii aad ku leedahay address in addresskaaga hore u qaadato. haddii ay jiraan biil sida korontada biyaha gaaska oo adiga kugu qoran bishii ugu dambeeyay inaad hore u qaadato. haddii jaamacadda aad ka dhigatay semester ama 2 semester casharadii aad qaadatay in jaamacadda ay kugu daabacdo oo aad ayadana hore u qaadato. warqadii lacagta aad ku shubtay airportka markaa ka bixaysay inaad hore u qaadato. dabcan lacagta inaad bixisaa waajib maahan oo markaad fiisa soo qaadatana waad bixi kartaa laakiin haddii aad awoodo marka aad sii baxayso lacagta ganaaxa inaad iska bixiso ayaan kugula talin lahayn si aad safaaradda u tusto inaad tahay arday aan lasoo tarxiilin ee asagu si nadiifa turkiga uga soo baxay. taasna waxay kuu fududaynaya inaad fiisaha degdeg ku hesho. sidoo kale haddii ay jiraan waalidkaaga oo turkiga ku nool ama hooyo ama walaalo ama wax noocaas oo ama dad qaraabadaada ah oo turkiga ku nool haddii ay jiraan waxaan kugula talin lahayn inaad ayagana iqaamooyinkooda koobiyeyso si haddii hooyo joogto kale hooyo ama walaalkaada joogo kale asagoo kale inaad iqaamadiisa koobi ka qaadato kadibna aad ku darto faylka aad u geynayso safaaradda si loo arko qofkan turkiga inuu adres ku leeyahay qofkan turkiga inuu dad waalida ku leeyahay ama dad qaraabaa ku leeyahay qofkan turkiga inuu jaamacad ka dhigto oo casharo soo qaatay. يعني تركي محو قفكان ugu laabana su'aasha ah inay safaaradu fahmi karto ayada oo aan adiga ku weydiin waxba inay dokumentigaada ka fahmi karto oo dhigi karto qofkan waa diyaar waa qof haduu laabto meesha wax ka sii wada lahaa jaamacadu sii wada lahaa waa u jeedaa meesha degi lahaa waa u jeedaa wixii oo dhan way cad yihiin kadibna ay fiisahaada hore ka sii karto. taas micnaheedu ma ahan dokumentiga haddii xataa shirkadana kula diyaariso ama dokumentigan kuu sheegay haddaad diyaarsato ma lagu diidi karo ma aha laakiin dabcan ihtimaalka inaad hesho kor ayuu sii aadaa. marka dokumentigaas aan soo sheegay inaad hal fayl ka dhigto kadibna safaaradda aad geyso ha hilmaamin haddii aad u baahanta marka in lagaa caawiyo oo aad turkiga joogto ama agency kale kuu xareeyo ama adiga si toos jaamacadda u xareyso dabcan xafiiskeena Ankara iyo xafiiskeena Istanbul ayaa telefoonada shaashada ka muuqda nagala soo xiriiri kartid. haddii aad Muqdisho ama Hargeysa joogtana dabcan ayagana telefoonka shaashada ka muuqdo ayaad xafiiskeena kala xiriiri kartaan waxay idinla diyaari doonaan dhammaan dokumentiga aad u baahan tahay si aad fiisaha u xareysato. waxaan rabaa videogan aan kusoo gabagabeeyo marka haddii aad fiisi aad soo qaadatay oo Ilaahay fiisihi kuu fududeeyo oo aad fiisihi soo heshay marka wadanka ku soo laabato maskaxda ku hay waa inaad 10 maalin gudahood iqaamada ku xareysato. 10 maalin gudahood waa inaad iqaamada ku xareysato. fadlan taas meel ku qor si aan wax problema oosan kugu dhicin. taasna ma aha wax aniga aan dhahayo waa wax immigrationku ay leeyihiin. dabcan wixii caawinaada waxaad lagu soo boqon kartaan xafiiskeena Istanbul xafiiskeena Ankara iyo xafiisyadana kale ee aan ku leenahay dalka. wixii jaamacada u baahataan ama wixii adeega turkiga uga baahataana dabcan mar walba waa noogu imaan kartaan. waxaan ka shaqayn doonaa inaan xogta saxda ah iyo sida saxda ah aan mar walba idinkaga caawino waxbarashada iyo nolosha dalka turkiga. waxaan idin leeyahay intaan video lamid ah ku kulmi doono. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala